kooxda Tottenham ayaa 10 u dhigtay Manchester City oo ka soo toban doonin iyo Itixaad oo la wareegay ayaa muuqaalkan ku eegi doona iyo wararkii u dambeeyay ee ciyaaraha sidoo kale kooxda Tottenham iyo Itixaad Stadium ayaa isla ciyaarayeen kooxda Manchester City versus Tottenham labadan kooxood ayaa ciyaartii maanta duhurnimada bilaabay labada duhurnimo ayay bilaabeen ciyaartii maanta ahayd ciyaartaas oo laga adkaaday kooxda Manchester City inkastoo ay kooxda Manchester City ay ku bilowday dardar xoogan halkaas oo laga jawaabay kooxda Tottenham Hotspur ayaa guul lama filaan ah soo gaartay Manchester City kadib markii ay 2-0 ku dardareen dhigooda Manchester City inkastoo City ay ciyaartan ku bilowday si xoogan oo ay kubadda ku xakameeysay Spurs ayaa si fiican u maareysay fursadihii soo maray Brennan Johnson ayaa dhaliyay goolka koowaad kadib markii VAR lagu booriyay offside halka Joy Balfina uu goolka labaad u dhaliyay ka hor nasashada kadib qalad difaac ay sameeyeen Manchester City ciyaaryahankan qadka dhexe ee Joy Balfina oo u dhashay wadanka Portugal oo horaan u ciyaari jiray kooxda Fulham ayaa u wareegay kooxda Bayern Munich ee lacag dhan 52 milyan ay ku wareegeen sanadkii 2024 balse hadda ayaa soo qaadatay kooxda Tottenham ayaa ku soo qaadatay 5 milyan oo ah amaah xilli ciyaareedkan hadda 2025 ilaa 2026 ee sanadkan ay ka faa'iideysanayaan ciyaaryahankan qabiirka ah ee horaan Premier League uga ciyaari jiray qaybtii labaad Manchester City waxay ku dhibtootay jabinta difaaca adag ee Tottenham taasoo keentay in Spurs ay ilaashato hogaanka ay qabato guul muhiim ah ee garoonka martida kala hooyatay ciyaaryahanka kulanka waa Joy Balfina ayaa ahaa geesiga kulanka isagoo oo aan kaliya dhalin goolka labaad ee go'aamiyay ciyaarta balse sidoo kale si buuxda u maamulay qadka dhexe isagoo muujiyay xirfad iyo adkaysi midaas oo ka caawisay inuu horaan khibrad weyn ka haystay ee horyaalka Premier League oo ugu adag horyaalada caalamka xog xiisa leh tani waa markii saddexaad 5 jeer oo ay Spurs booqdaan Itixaad oo ay guul soo hayaan garoon ay kooxo badan ku qabaan inay dhibco ku helaan kooxo badan ayaa ku luminayaan fursadahooda Itixaad Stadium halka Tottenham iyadana bariyahan dambe iska soo qaadanaysa dhibcaha si fudud guusha waxay Tottenham u keenaysay guushoodii 12aad ee 30 kulan ee la ciyaareen Manchester City taas oo yareynaysa farqiga rikoorka kulamadooda ee taariikhiga ah inkastoo ay City ay guulo badan tahay Spurs ayaa Itixaad ku muujisay adkaysi iyo diiranaan taasoo inay ka caawin doonto loo badinayo inay kaalmaha sare ay sanadkan ku dhameysato ee kooxda Tottenham inkastoo sanadkii hore ay ku dhameystay kaalmaha ay u dambayso oo saddexda kooxood ay aadayaan relegation ee horyaalka Serie B aadayaan ay si dirqi ah u badbaaday laakiin Tottenham ayaa la filnayaa sanadkan maadaama hadda kulankooda labaad oo xiriir ah ay badiyeen horyaalkan cusub ay hadda la bilaabay balse coachkooda cusub ay ka soo qaateen kooxda Brentford ayaa khibrad weyn u leh inuu kooxda maareeyo sidoo kale ciyaartan ayaa laga filan karaa waxyaabo badan inkastoo Manchester City ciyaaryahanada ay soo iibsatay ee bariyahan dhan oo la saadaalinayo oo la hayay wax badan ay qaban doonaan oo haddana cirka isku shareeray inkastoo ciyaaryahankii hore qadka dhexe Regenders oo asagana oo si ay u muuqan waayeen waxa ciyaarahan si fiican isku wada qabsaday Regislan Johnson iyo Kodos ciyaaryahanada badan sidoo kale waxa la jira ciyaaro badan ayaa la filanayaa Tottenham waan arki doonaa insha Allah falaqeynta ciyaarta dama qaybta dambe ayaan arki doonaa insha Allah sidaas iyo nabadgelyo